dagaalka baraha bulshada diyaxdan warshay koox aan ka barta TikTok-ga ayaa maalmihii la soo dhaafay hadalhaynta ugu badan ka ahaa mareegaha la isticmaalo. Su'aasha dadka qaar isweydiiyaan waxa ay tahay maxaa diyaxdan warshay ka dhigay bartilmaameedka dhalinta caanka ah ee laga garanayo TikTok-ga? Maxayse tahay sababta diyaxdan warshay uu blog u saaro qof kasta oo isaga ka hor imaada oo leh raaciyaal fara badan? Isqabqabsigooda ayaa ugu dambeyn isku bedelay caay xadka dhaafsan, isballansi dagaal iyo fadeexad aan inaba caadi ahayn. Muuqaalkan waxaan ku soo koobi doonaa waxa iiga baxay anigoo ugu dambeynna fariin u diri doona saaxiibada kooxda ah ee dagaalka kula jira alfanaan diyaxdan warshay. diyaxdan warshay caannimadiisa, caasimadda Muqdisho iyo waxa uu yahay. diyaxdan warshay waa fanaan Soomaaliyeed oo sumcad iyo sharaf ku dhex leh bulshada dhexdeeda, mudanna in lagu qadariyo inuu yahay fanaankii xamar shatay iyadoo uusan fanaan kale ka heysi jirin. Waxay taageerayaashiisu ugu yeeraan King of the City ama boqorka caasimadda. Waa nin fanaan ah oo magaalkiisa shita, waa milkiilaha Morla oo ah goob qurxinta iyo labiska ragga caan ku ah. Dabeecad ahaan Dayax waxaa lagu xantaa inuu yahay mid qofka ay isqabtaanba blog saara si uu u kala caddeeyo cadowgiisa iyo saaxiibadiisa, taasi oo ka dhigta saaxiibo badan oo hore u lahaa inay cadowgiisa isku beddelaan. Sababta ka dambaysa inuu blog saaro waa inuu u arkay inay cadowgiisa yihiin. Yalkeedii fariinta Dayax aan u dirayo maxay tahay? Alfanaana waxaa tahay fanaan Soomaaliyeed, waan ognahay waxaa tahay nin dhallinyaro ah oo xirfadle ah, waxaadna u qalantaa xushmad fanaan iyo mid dhallinyaro inaad hesho. Xaq ayaad u leedahay in qofkii aad u aragto cadowgaaga inaad blog saari karto adiga iyo xulashadaada, balse waa inaadan meesha ka saarnay muhiim tahay inaad wax badan xiiriso. dhallinyarada caasimadda fanaankooda ayaa tahay, waxaana lagaaga fadhi inaad isku waddo halkii aad badankood la culoobi lahayd. gunaanadka fariinteeda Dayax waxa ay tahay maadaama aad ku magacaaban tahay magaca King of the City, waa inaad noqotaa mid saaxiib la ah dhammaan dhallinyarada. ugu dambeyn fariinta aan u dirayo saaxiibadayda caanka ka baraha bulshada oo aan aad ugu kalsoonahay in fariinteeda ay gaari doonto waxay tahay, inkastoo aan ka soo hadlo Dayax waxa uu ku fiican yahay, way fiicnaan lahayd haddii Dayax uu wajahaya hal qof oo keliya. waxaan soo tixi lahaa wanaagga qofkaasi oo uu ku tilmaaman yahay, laakiin kooxda si isku duuban ayaan u qirayaa in dhammaantood ay yihiin dhallinyaro wax soo saar leh uu ku jira wakhtigooda dhallinyarnimo ee ka faa'iidaysiga mudan. waxaana kooxda dagaalka kula jirta Dayax aan leeyahay, waxaan idinku tuhmayaa inaad tihiin dhallinyaro waxgarad ah, sidoo kalena aad si weyn uga caroon kartaan qofka aad ishaysaan, idinkoo badankiin ah dad waxbartay oo yaqaana waxa ay sheegayaan. waan ku kalsoonahay inaad tihiin badankiin ciyaal xamar, ragna wax ka yaqaana. dadku way isqaban karaan waana ay heshiin karaan berri. xamar waa meesha kulmisa dhammaan dhallinyarada ee marna ha u dagaalamina sida inaysan waxba idiin harin oo kale. waa inaadan meel isaga tuurin qadarinta dadka ku taageera adigoo rag iska dhiciis leh oo ah fikir aan sax ahayn. waxaad leedihiin doorasho aad ku taageeri kartaan saaxiibkii aad doontaan, kuna weerari kartaan cadowgiina bannaanka ah, laakiin idinkoo ciyaal xamar isla ah taasi ma ahan wax qurux badan. fariinteedu waxay tahay xoogaa hubka dhiga oo laftii aan la tuuri doonin hilibka lagama dhammeeyee. Dayax berri ayaad la heshiin kartaan oo aad ka dhigan kartaan saaxiib ee balwaxeeriya saaxiibayaal. qof kastana ha isku ixli saaro in madaxiisa oo keliya uu meerax ku xirto isagoo bannaanka ka istaagaya fadeexaddan ay dadku sida weyn u daawanayaan. Dayax waa nin dhallinyaro ah oo idinla mid ah, suuqa fanka iyo midka TikTok-gana uma malaynayo inaad isku haysataan. waxaad isku haysataan ma aan wax weyn, waxaana hubaa in walaaltinimada ay ka weyn tahay waxa aad kala tirsanaysaan. dhallinyaro magaalkiina shita, xamar idinkaa shidee, iskana ilooba xogashada kaar qabaliyad ah idinkoo awooda inaad taalantigiinna magaalka ku joogtaan oo aad xamar ka talisaan. fariinteeda ugu dambaysa waxa ay tahay, Dayax waa dhallinyarada caasimadda, dhallinyarada caasimadduna waa Dayaxdan warshay.